koonfur galbeed oo taxsiis lafta gareen madaxweynaha Hirshabelle Guudlaaw iyo gudoomiyihii gobolka Banaadir oo isaguna maanta la soo gaaray waxa kale oo runtii iyaguna maanta yimi madaxweynihii Jubbaland Maxamed Salaam Axmed Madoobe waxa kale oo isna galabtii soo gaaray magaalada Samareeb madaxweynihii Puntland Saciid Cabdilaahi Deni intaas waa warbixinta aan rabo inaan siiyo dadweynaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dhammaan madaxda timi hadday heer federaal tahay iyo hadday heer goboleed tahay aad iyo aad u mahadsan ku talagalka shirku wuxuu ahaa inuu caawa furmo lixdii maqribnimo adigu madaxda oo daalanay iyo hawsha dib u dhacday dib ugu dhacay bariis waxaynu furmo shirkanna waxa aan ka filaynaa inuu noqdo ayadaad la ayadayo shirkii 17 September xamar kusoo gabagaboobay ee lagu gaaray go'aamada doorashooyinka iyo horsocodka dalka bari subax waan kulli saxaafadda halkan wargelin ku siin doono hadday gelin hore suurtagal weydana fiidka oo kale aan siin doono waanu jecelahay mar walba inay nala wadaagaan aanu la wadaagno howluhu halka ay marayaan iyo shirarku si maadaama meel kastana laga soo weydiinayo halka shirka marayo inuu furmay waxyaabaha dhaqaaqay inaanu mar kasta dadweynaha meel kasta ay joogaan dalka gudihiisa iyo dabadiisaba aynu ka haqabtirno halka howla inoo marayaan waxa weeye waa marxalad waxaynu joognaa kala guur ah oo dalkeenu doorasho u hanqan waxaan rabaa inaan halkan baa uga diro shacabka Soomaaliyeed inay niyadsami ku seexdaan madaxdoodii baa halkan isugu wada timi waxaa laga filayaa wax wanaagsan sidii shirarkii horeba looga filayay waxa laga yaabaa shirarkii Samareeb 1 Samareeb 2 inay ka adkaayeen kan caawa aynu rabno inuu noqdo Samareeb 4 aynu ka qaadno halkan xaaladaas aad baa loo kala fogaa habka doorashada loo geliyay laakiin hadda waxaynu haysanaa heshiiskii 17 September oo lagu go'aamiyey habraacyada iyo qaabka iyo nooca doorashada noqonayo dhammaan waxyaabaha asaasiyaadka waxyaabaha farsamada ah waxaa lagu sii dhamaystiray weliba heshiiskaasi wuxuu qiimo ku sii lahaa in labada aqal ee aqalka golaha shacabka iyo aqalka sare ay ansixiyeen oo uu yahay arrin sharci xaalka ama inta dhiman waxaa lagu dhamaystiri doonaa shirkeena inoo furmi doono bari subax hadba halka xaal marayo iyo marka la sameeyana waanu la wadaagi doonaa warbaahinta iyo ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan shirkuna sida aan idin sheegay waxay ahayd inuu caawa furmo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waa habeenkii labaad uu joogo runtii shirka uu ku baaqay uu isugu yeeray xubnaha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka waxay ahayd in dalka hore u socdo doorashadiina la qabto lana dedejiyo doorashada oo ah asaaska dimuqraadiyadda dalka runtii madaxweynuhu aad buu mahadsan yahay horeba geed fadhi buu ahaa haddana waxaa muuqata inuu geed fadhi yahay oo uu rabo in dalka doorasho ka dhacdo runtii intaasaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo kelmadahan kooban madaxda kale ee aan caawa shirka kasoo qayb gelin waxaan rajeynaya inay beri subax nagala soo qayb geli doonaan si shirku u dhaqan waa mahadsan habeen dambe beri subax doorashada oo ah asaaska dimuqraadiyadda dalka runtii madaxweynuhu aad buu mahadsan yahay horeba geed fadhi buu ahaa haddana waxaa muuqata inuu geed fadhi yahay oo uu rabo in dalka doorasho ka dhacdo runtii